قبل حد حاجة كوسعة فرحية نيروبي كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي غالية اللي هانتي مركز دوكا كتوتاوني واحد ليه سود هذا قناة سبسكرايب سارة مقالك لا جرية وشير جرية اللي بدأ أصحابتنا سوكل فكر كاي ركض أهد مهم نوجي سكتين حق وصل مركز نوجرتان يوحي تلاقي تصاليات مركز إنه هيسان أدبن مركز تلدين أو رصندونا إن شاء الله رنتي مقالك يبوح داري هاي رنتي وحويان inaan walaashayna oo aad wada taqaan farxiye kabeere iyo soo kale wiil walaalkeen oo youtuber ah sidoo kale sheekh ah oo youtube leh ee magaciisa la yiraahdo sheekh badbaado wada taqaanaan badbaado channelkiisu waa channel aad u weyn ku dhawaad milyan buu ku dhawey marka wax leena horta markuu koobad guuleyso walaalo runtii iyo farxiye kabeere ayaa waxa dhexdooda soo galay shaqaaqo ama dagaal waxaan ku tilmaami karo oo runtii ay sababtay baan oran karaa farxiye kabeere dadku waxay isleeyihiin badbaada sababay dagaalka badbaada runtii inanta ku dhagay badbaada runtii ay badbaada fadxaday dadku sileeyay laakiin arku sidaad moodeen ma dabcan waxay ku bilaabantay sheekadu isagoo oo runtii waaninaya farxiye kabeere iyadana weera anfaca siinaya ay iyadu khalad fahantay oo meeshii waxay yimid misaan rastaan baa yimid iyadoo oo runtii wax loo sheegayo tala la siinayo waana la siinayo ay iyaduna u aragtay in lagu xaroonayo la gelayo Soomaaliland garan sida muuqaaladii hore ba ka aragtay oo iyadu lahayd anigu soo galay ma aragtan ay lahayd isaguna muucaayin mu aflagaadeen mu fadaxadeen youtuber wuxuu ku yahay inuu barnaamijyada waaqicay baraha bulshada ka jira uu ka warbixiyo oo dadkana wuxuu waanaan karo uu waaniyo runtii waxyaalaha dadku ku khaldan yihiin oo waxaasad ku khaldantiin horta waxaan isla wada ognaynaa farxiye kabeere arinkan iyadu ay bilowday hadii ay inantaas la isku haysto ee ladan la yiraahdo iyadu lacag uruursay iyo hadii dadka ay iyadu dadka bartayba sidoo kalena iminka waxay tiri farxiye kabeere inantaasi inan lacag loo uruuriyo ma qalanto inan dib haday wax ku soo wadiisto wax la siiyamaha waayo lacagtii way ku khasaarisay oo rag bay ku guursatay waa sida bal marka hore lacagta maxaa loo siinay ma in lagu la xisaabtamo mise iyadu waxay u baahan tahay inuu ku qabsato taas ay su'aal oo isweydiin ma iyadu hadii lacagta loo soo ururiyay qofkii sadaqadaysanay wuu sadaqadaystay lacagtii la sadaqadaystay qasam baa halkeed marasay in la yiraahdo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu og yahay qofka inuu lacagtii sadaqadaystay sadaqadiisina waa u qorantahay laakiin hadii odad iyo dabagelid ay noqoto taasi dawaa madnuuc wixii sadaqa ku noqon mayso farxiye kabeere xoogeedii iyo lacagteeda ay sadaqadaysatay way ka daba hadashay waa mid kooban taas ayuu markaas sheekh badbaado ku yiri inantaasi kadig oo walaalo hadii wixii sadaqadaysatay say waxaagi ilaahay uu markaa keedka uu kugu daro ka aamo oo ka daba hadlin dhac waa qaraxda inanti maanta hadaba waxa timi in ticket America ka soo goostay Nairobi timaado ujeedada u timina wala alaana dadku way isweydiinayaan farxiye kabeere runtii horta waa inaan walaashayna ay iyo aflagaado iyo fadaxad midna inaga ma mudno sababta aan inooga midnaan baa waxa tahay runtii inaga waxay nagu tahay hadeen Soomaali lahay inaga wax ka dhignay inaga kor u qaadnay inaga taageeraheeda noqonay inaga dadka runtii ka takoornay oo ka dhiganay qof sumcad leh oo magac leh oo maanta la raadin karo oo lagu qanacsan yahay in sawir la galo qof caan ah Soomaaliya ka dhigtay iyadoo inta urku hooyada kaga may soo bixin iyadoo caan dhalaya Soomaal garay bulshada Soomaaliyeed ku garatay waxaad ogsoonataa haday bulshadan kugu xiran inaad ixtiraamto su'aali yaro kalena meesh way ka dhalato ah horta habluhu miyayna wax isku sheegin raga Soomaaliyeed hadaan wax isku sheegnaa runtan nilaa war nina wad khaldantahay hadaan aragna qof ka khaldan waxaad ka khaldantahay bal waxaad ku khaldantahay sax laakiin inantii baad arkaysaa iyadoo khaldan hadana iyadoo loo sacabtumayo iyadoo la garab taagan yahay iyadoo la hareer taagan yahay iyadoo la baliyaayo iyadoo la difaacayo iyadoo xumaantii lagu taageerayo intaas qawaynu aragnaa Soomaaliland garan maanta inay tigir u soo goosto sheekh badbaado ay Nairobi timaado iyadoo rabtade ilaa asaxani wanaag uma socoto xumaan bay socotay dabka dumar shidaana madamo adduunyadan gebigeeda dagaalada ugu badan ee dhaar dumarku ka dhasha Soomaaliland garan hadaba waxa isweydiin mudan mar hadii aynu bulshada Soomaaliyeed aynu nahay horta waxyaalaha foosha xun ee nagu soo noqnoqday dhexdeena inaynu ka waantoobno inaynu inagu lafteenuna bal dadka khaldan inuu khaladkiisa siino ilaa waxay wax soo ku khaldan farxiye kabeero way wanaagsan tahay runtii waa dadka caawiyo waa dadka garab istaaga waa dadka runtii u kaca markay tabaalaysan yihiin hadana waxa ku jab dhigtay iyadu waa dabkii baxaya dab ku qabso hadii maanta laba qof ay saysan way dhex galaysan hadii
iyadu aan loo jeedin baa laga hado hadan way galaysa waa sheekha kulli meesha ilaahay kana dhibaata yar taalaba waa igu qabo marka waxaan leeyahay horta farxiga ka weerar sharkay wato ee America uga soo duushay rabteen America timaadeen Nairobi kaas ilaahay miskiinka yar xagar mariyo runtii wiilka yar iska youtuberka iska sheekha ee iska wanaagsan walaal ma sha Allah baariga cidna ka dacwoon cidna aan dhibaato u geysan ee youtube-kiisaas ka bariisaya waliba dhanka positive-ka uga bariisaya barnaamijyada yar ee waaqac baraha bulshada ku jirana marmar ka hadla badanana ka hadla yani aayado iyo yani suurado adduunyadeena iyo aakhiradeena ina anfaca barnaamijyo noocan program noocaasna ka hadla sometimes waxyaalo caafimaad oo runtii dawooyin dabiici wax noocana dawad wata miskiinka yar maanta dhibaato kama gayoodo in tigar loo soo goosto America laga soo duuro Nairobi maado marka waxaan leeyahay reer Nairobi dhamaantood ee baaqa mudare waxa weeyaan farxiga way imanaysaa imka muuqaalkan aad aragteen ee aad la daawateen ayaa waxa uu yahay muuqaal runtii iyadoo safar ah oo waliba ka soo duushay America ay Amsterdam transit ku hayd halka ay ku kulmeen hani UK ayaa markaa ku jira xaqad ku socota waxa Nairobi ku socda maalin dhaweyna barnaamij ama program ay soo dubtay waxay kali ninkan halku jooga Nairobi ma sha Allah Afrika jooga waa yahay isla laba cisho ka bacdina waa tan dadka ku go'ay heerkaas farxiga ka weerar maanta marasa Soomaa markaa runta aynu sheegno waxaan leeyahay walaalo horta bulshada Soomaaliyeed baynu nahay dhibaatada iyo dilka iyo dagaalka iyo shaqaaqada waxaad moodaa inaan ku tamarano oo energy cusub uu nagu galo laakiin dagaal faa'iido ma laha wallahi baan ku sheegi maayo ay faa'iido ma laha dhaleecayn iyo sharaf xumo inaad qof ku rida faa'iido ma laha adiga iyo kafantaada yar iyo camalkaagu baa qabriga dalaq leedin siinaya marka aakhiradaada u tulo adduunyadaada u tulo wada aragtaa muuqaalkeedu xitaa ma qurux badna shaari su'aal bay xiran tahay waxaad aragtaa inaad geejisan tahay dagaal diyaar u tahay Soomaa marka waxa leeyahay ilaahay sharkay soo wado miskiinka yar xagar mariyo sheekh badbaadna waxa leeyahay dhibaato kasto ka soo gaadhay inaad wargacdi ku samir sidoo kale waxaan ka codsanay inaad muuqaal dambe aan ka soo diyaarin inaad tasmaadaama xanaaqaysaba hadii program laga diyaariyo inaad muuqaal dambe ka soo diyaarin taasan tala ku wata aad baan naasantiin jacayl muuqaalkayna ku dheeraado halkaan mar haddii soo garan waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka subscribe saartaan muuqaalkan sidoo kale like gareysaan waad share gareysaan waad la wadaagtaa asxaabtina tan muuqaalka iyo muuqaalka ku kulano waxaan leeyahay nool kulante